waxaa maanta bulsho gaadhaysa 50 milyan oo Turkiya u dareereen doorasho xilligeeda laga soo hormariyay iyadoo la filayo madaxweynaha xilka haya Rajab Tayyip Erdogan iyo xisbigiisu inay ku guuleystaan inkastoo uu jiro loolan adag iyo isbahaysi ka soo horjeeda oo aan la dhayalsan karin. madaxweyne Erdogan waxa uu xilka dalka Turkiga qabtay sanadii 2003 haddaba Turkigu halka uu joogay iyo maanta heerka uu marayo ayaynu warbixintan ku eegi doonaa. Turkigu wuxuu tartanka ganacsiga adduunka kaga jiray sanadii 2002 ka hor kaalinta 111aad wuxuuna ahaa dal deyn badan oo lagu leeyahay la ciirciiraya. maanta wax soo saarka dalka sanadkii iyo dhaqaalaha ka sii xarooda waxaa lagu qiyaasaa 1 trilyan iyo 200 oo bilyan. wuxuuna maanta Turkigu ku jiraa kaalinta 16aad ganacsiga adduunka wuxuuna ka mid yahay 20ka dal ee adduunka ugu horeeya ganacsiga. xilligii Erdogan ka horeysay muwaadinka Turkiga ah waxaa soo geli jiray isku celcelis ahaan sanadii 3,500 oo dollar. maanta waxaa soo gala 12,000 oo dollar. sanada 2023 wuxuu qorshuhu ahaa idanka ilaahay sida xukuumaddu ay sheegtay in la gaarsiinayo 25,000 oo dollar sanadkii inay soo gasho qofkiiba. waxaa kor u kacay mushaharka dadka shaqeeya. madaxweyne Erdogan ka hor muwaadinka Turkigu wuxuu ahaa mushaharkiisu ugu hooseeya 350 liire. maanta waxaa ugu hooseeya 950 taasi oo ka dhigan inuu si weyn sare ugu kacay mushaharku. Turkigu waxa uu ahaa dal la ciirciiraya deyn uu ku leeyahay bangiga adduunka tan iyo sanadii 1952. xukuumadda Erdogan markii ay xukunka la wareegtay waxaa lagu lahaa 16 bilyan. qaybtii ugu dambeysay oo ahayd 300 milyan waxay bixiyeen sanadii 2013. waxayna Turkigu amaahiyeen bangiga adduunka 5 bilyan oo dollar markii dhaqaale xumidu ay la soo gudboonaatay dowlado badan oo Yurub iyo adduunkaba ah. waxaana kor u kacay kaydka dalka ee dahabka iyo lacagta adag. waxaana sanadii 2014 dowladda Turkigu ay kaydisay 114 bilyan oo dollar. mashaariicda waaweyn ee laga fuliyay dalka Turkiga ayaa ah kuwo aad u tiro badan waxaana laga xusi karaa garoomo diyaaradeed oo gaadhaya 52 iyadoo kan Istanbul uu ka mid yahay kuwa ugu waaweyn adduunka. 125 jaamacadood 189 dugsi ama iskuul iyadoona qorshuhu ahaa in 21 ardayba ay helaan hal fasal. 500 oo cisbitaal si aan qofna sariir loogu waayin dadka gaadhaya 90 milyan. 100 boondooyin iyo tareenada dhulka hoostiisa mara. qorshaha xukuumadda Erdogan ayaa ah in 300 oo kun oo arday iyo macallimiin mushahaar lagu siiyo cilmi baadhis inay u go'aan oo ay ku mashquulaan. Erdogan waa madaxweynaha kaliya ee dhugmada u leh daryeelidda dadka walaalihiisa ah ee dunida ku nool weliba isha gaarka ah ku eega soo booqda garab istaaga dhaqaale ku bixiya. waa madaxweynaha kaliya ee soo booqday dalka Burma si uu garab istaago dadka muslimiinta ee Rohingya oo halkaasi lagu gumaadayay. waa madaxweynaha kaliya ee Soomaaliya 3 jeer soo booqday iyadoo ku jirtay xaalad adag kuna bixiyay dhaqaale badan kana fuliyay mashaariic aan halkan lagu soo koobi karin oo dhammaantood muuqda kuna dhiiraday safaaradda ugu weyn Afrika inuu Soomaaliya ka dhisto. iyadoo 7 sano ee la soo dhaafay ardayda Soomaaliyeed ee wax ka baranaysay dalkaasi Turkiguna ay gaadhayaan 5,000 oo arday. sidaasi si la mid ah ayuu u garab istaagay dad badan oo dhibaataysan oo ay ka mid yihiin dadka u dhashay Suuriya. maanta Turkiga doorasho ayaa ka socota waxaana lagu wadaa inuu ku guuleysto Erdogan iyo xisbigiisa
doorashadan oo xilligeeda laga soo hormariyey waxaa la aaminsan yahay hadduu ku guulaysto madaxweyne Erdogan labada doorasho ee isi saaran tan madaxweynaha ee isagu u sharaxan yahay iyo tan baarlamaanka in dalka Turkigu uu gelayo marxalad cusub waxaana aad arrintan isha ugu haya reer galbeedka oo aan jeclaysan inuu ku guulaysto waxaa iyaguna jira madax badan oo dunida carabta ka mid ah oo iyaguna aan jeclayn inuu guulaysto hase yeeshee bulshada dunida islaamku waxay jecel yihiin inuu guulaysto Erdogan warbixintan waxaa idiin soo jeedinayay anigoo Axmed Cabdiqaadir Ismaaciil Axmed Daruusha waxaana soo diyaariyey Asad Cadaan Ibraahim tan iyo kulantii dambe nabadgelyo